السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هبون إدil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada Halhays Media. barnaamijkeena Halhays Media maanta waxaynu ku qaadaynaa qisada taariikhda dahsoon ee fanaankan reer Buucay Cabdikariin Cali Shaah. waa kuma Cabdikariin Cali Shaah xagee ayuu ku dhashay Cabdikariin Cali Shaah muxuu yahay higsigiisa hadda iyo kiisa mustaqbalkaba. barnaamijka ayaad kaga bogan doontiin ku soo dhawaada barnaamijka. fanaanka caanka ah reer Buuco Cabdikariin Cali Shaah waa fanaan dhalinyaro ah oo ku dhashay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco. taariikhdu markay ahayd sanadii 1991 bishii 9 Febraayo wuxuu ku soo barbaaray Burco. wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisii u horeysay malcaamad Quraan oo ku taalay agagaarka xaafadda ay deeganayeen. wuxuuna intaa kadib ku biiray iskuul ku yaala xaafadda Maaxada, waana iskuulkaas oo ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo lagu magacaabo Jamaal Cabdinaasir. iskuulkaas oo loo bixiyay xilliyo hore isla magacaasi. halkaas ayuu ka soo bilaabay hayaankiisii nolosha. Cabdikariin Cali Shaah wuxuu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta, wuxuuna ciyaaraa wuxuuna ka mid noqday koox ka dhisnayd xaafadooda. taariikhda ciyaaryahanimo kadib Cabdikariin Cali Shaah waxbarashadiisii ayuu dhamaystay, balse nasiib darro wax camal ma helin. fanka ayuu aad u jeclaa isagoo garaaci jiray cuudka ama cuudka loo yaqaano kabanka. kadib wuxuu isku dayay dhowr mar inuu soo heeso, balse nasiib darro reerkooda oo wadaado dartood waqtiga ayaa u saamixi waayay. intuu wuxuu heeso soo saaro ayaan jirin. Cabdikariin Cali Shaah inuu hadafkiisa fanka ka midho dhaliyo way ka goonayd, balse waxay u suurtageli weyday magaalada uu ku noolaa ahayd gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. wuxuu go'aansaday inuu ka haajiro uu iskagana hayaamo isla aagaasi gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. waxa uu aaday magaalada madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa, halkaas oo kula kulmay duruufo badan oo fanka, balse wuu diiday inuu iska dhiibo ama uu ka haro guud ahaanba fanka. waxa uu jeclaa ilaa yaraantiisii inuu ku biiro kooxda fanka ama fanaaniinta Soomaalida. waxaa Hargeysa ka bilowday oo si xawli uga soo batay kooxaha fanka ee ku bahoobay inay si wada jira wax u soo wada saaraan. intaas kadib Cabdikariin Cali Shaah dadaal dheer oo uu muujiyay wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo aasaasayaasha kooxda Fansan Band oo gacan weyn ka geystay isaga iyo Abwaan Daaha Gaas oo muusigiista cadceed iyo waliba Bulshaawi oo kooxda Fansan Band ka tirsanaa. fanaaniinta ka soo baxday kulligood waa kuwa saameyn xoog leh ku leh guud ahaan Soomaaliland iyo geyiga Soomaalidaba. intaas kadib Cabdikariin Cali Shaah maanta si fiican ayuu ugu naaloonayaa dadaalkii iyo hayaankii dheeraa ee uu soo galay. rumaysan riyadiisii waqti xaadirkan Cabdikariin Cali Shaah waa fanaan ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay geyiga Soomaalida, isagoo heeso aad u macaan la soo qaaday masraxyada fanka ilaa uu gaaray heer loogu yeedho ustaad ama macallin. waxaynu halkaas ku soo koobaynaa taariikhda fanaan Cabdikariin Cali Shaah, balse maalinta berrita waxaanu idin soo bandhigi doonaa fanaan allaale iyo fanaanka jecesiin taariikhdiisa annagoo xogo badan ka ururin doona. haddaba daawadayaal fanaanka jecesiin inaanu ka soo hadalo taariikhdiisa commentiga nagu reeb si aanu u baadhno taariikhdiisa gaarka iyo tiisa dambe ee mustaqbalkaba. haddaba daawadayaal haddaad channelka ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadana la wadaag. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Cali Daaha. salaamullaahi calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.